magaalada Baydhabo waa magaalo madaxda gobolka Baay waxayna ka kooban tahay 4 xaafadood oo kala ah Isha, Horseed, Halwadaag iyo Bardaale kuwaas oo iyana u kala baxaa laamo iyo xaafado iyaguna caan ku ah magacyo u gaar ah. Cumriga magaalada waxaa lagu sheegaa inay tahay magaalo muddo badan la soo degnaa asaaskeedana uu salka ku hayo buulo ay degnaayeen koox jameeco ah xilligaasi oo inta badan ay ahayd meel hood ah oo hooy u ahayd duurjoogta noocyadeeda kala duwan. taariikh ahaan waa magaalo aan sida u faacweyn marka loo eego magaalooyinka qaar ee gobolada dalka gaar ahaan kuwa deriska la ah sida Luuq, Tieglow iyo Buurhakaba oo Baay ka tirsan. waxaana odayaasha taariikh ahaan magaalada wax ka xasuusta ay ku sheegayaan in asaas ahaan deegaankeeda uu ka soo bilowday sanada markuu ahaa 1902. degmada Baydhabo waa magaalo deegaan ahaan istiraatiiji ah halbowlana u ah gobolo fara badan iyadoo mareenka degmada ay isticmaalaan gaadiid fara badan oo isaga guusha degmooyin gobolo ilaa heer dalal kale sida Ethiopia iyo Kenya. waxaana dadka ku dhaqan degmada ay caan ku yihiin wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Baydhabo waxay soo martay marxalado kala duwan waxaana si weyn u waxyeeliyay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyagoo burburiyay ilihii dhaqaalaha, adeegyada caafimaadka iyo goobihii taariikh ahaan ay lahayd magaalada gudaheeda waxaa ka dhacay barakac aad u ballaaran oo dibadda iyo gudaha saameeyay. marxaladaasina waxay noqotay mid uur ku taalo ay ku reebtay ruux kasta oo bini'aadam ah iska badaa kuwii ay ku dhacday. waana horaantii 90maadkii oo magaalada iyo bulshadii ku nooleedba aan waxba loo reeban macluusha iyo gaajadana ay gaareen heer aan abid la arag. taasina waa waxa keenay in Baydhabo Janaayo caan ku ahayd nimcadii ee basiistay loogu yeero magaca Madiinatul Mawd oo ah magaaladii dhimashada ama geerida. inkastoo taariikhdaasi ay ahayd mid lama ilaabaan ah ayaa haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay sabab u tahay dhibaatadii loo geystay shacabka ee laga xaalufiyay dhammaanba cunadii kaydka u ahayd oo dhac iyo boob loo geystay markii jabhado huwaysan sidii ayaxii ay ku dul habsadeen. isjiijid fara badan kadib jawiga wuxuu ku soo laabtay mid caadi ah. jiilkii ayaa mar kale waxay fursad u heleen inay ka faa'iideystaan iskuulaad ay maalgeliyeen hay'ado dhowr oo ka socday qaramada midoobay iyadoo isla qaramada midoobina ciidamadeeda ay ka howlgalayeen magaalada Baydhabo. waana inta u dhaxaysay sanadii 1992 ilaa 1995. xilligaasi muddo ka mid ah magaalada Baydhabo waxay soo gaartay heer loogu yeero magaca Half London waxaana jiray isku day maamul goboleed inkastoo si dhab ah aanay u dhaqan gelin maamulkaasi oo ay hormuud ka hayeen hogaamiyayaal caan ka ah dalka gaar ahaan bulshada gobolada Koonfur Galbeed. dagaalo iyo isriix beelo isku dan ah dhex maray aawadeed ayaa haddana mar kale waxay sababtay in laga faa'iideysto isla markaana magaalada Baydhabo ay gacanta u gashay kooxdii Salbalaar 17 Sebtembar 1995. muddadaasi wixii ka dambeeyay Baydhabo waxay hooy u noqotay dagaalo joogto ah oo dhaliyay in lagu jiitamo gacan ku heenteeda muddo ku dhow 5 sano oo galaaftay nolosha bulsho aad muhiim u ahayd. horumarka magaalada tan Baydhabo waa mid ku xiran muddo gaaban oo la helo nabadgelyo bal eeg horumarka ay gaartay magaaladii intaasoo dhibaato iyo dagaalo ay soo martay markii bulshada goboladan ay isku raaceen inay sameystaan isfaham iyo nidaam ka dhashay ururkii RRA intuusan soo kala dhexgelin tuunkii dib u dhac ballaaran ku keenay shacabka gobolada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo xarun u ah gobolka Baay. 26 February 2006 magaalada Baydhabo waxay si rasmi u noqotay xarunta ku meel gaarka ee baarlamaanka Soomaaliya
waxayna ahayd taariikhdaasi kulankii ugu horeeyay 275 xildhibaan iyo marti sharaftooda maalin qura ay isugu yimaadaan furitaanka xarunta shirarka baarlamaanka magaalada Baydhabo halkaasi oo loo doortay inay noqoto xaruntii hore ee kaydka masagada ama ADC magaalada waxaa ka bilowday sida ay caan ku tahay marka ay dhaqaale iyo waxoogaha xasilooni hesho dhismooyin iyo horumar dhanka dhaqaalaha ah lagamana fikirin haddii isbedel uu dhici karo iyo in looga faa'iideysto dhismooyin wadooyinka oo burburay iyo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada oo ku idlaaday marxaladihii kala duwanaa ee Baydhabo soo martay waxaana intaasi oo dhan sabab looga dhigi kara la xisaabtan la'aan hay'adaha arrimahaasi khuseeya iyo dhaqaalihii loogu talagalay oo dana gaar ah loo isticmaalo haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay Baydhabo yaa ku ehel ah ma dadkoo dhan waxay ku moodaan inaanay cidina ku lahayn tusaale waxaa shakhsi kasta oo qormadan dhageysanaya ku filan wixii ka dhacay 12 bisha Janaayo ee sanadkan markii ay ka baxeen magaalada ciidamadii dawladda iyo maamulkii oo ay garabka ka helayeen kuwa Itoobiya waana arrin foolxumo leh markii dadka oo dhan ay ku xoomeen xarumihii dhisnaa iyo agabkii yaalay waxaana dhulka la dhigay dhismooyinkii isla markaana saqafyadii laga xaalufiyay halka kuwa kalena ay iibsanayeen taasina waa waxa keenay in la isweydiiyo cidda loo nisbeen karo magaalada Baydhabo gargaar iyo badbaado eeba u soo diray ma jirin oo ay ahayn xarakada shabaabul mujaahidiin oo xilligaasi la wareegay gacan ku haynta degmada Baydhabo kana dhiciyay yeedii ku xuntay xarumihii muhiimka u ah magaalada kuna baxay kharshaadka aadka u farabadnaa Baydhabo haatan waxaa ka dhaqan galay ku dhaqanka shariicada islaamka iyadoo muuqaal ahaan magaalada si aad uga duwan sidii ay ahayd ciidii ka horeysay ruux kastoo ku cusub magaalada Baydhabo waxa uu durba dareemayaa in dhaqanka magaalada uu yahay mid ku salaysan diinta islaamka waayo astaamaha indhaha shakhsi kasta ku dhacaya ayaa ah tabeelooyin ay ku qoran yihiin aayado quraana iyo axaadiista rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyo xilliyada salaada oo si aad loo camiro masaajida iyo muuqaalo kale Baydhabo marka ay maqlaan bulsho badan waxaa ku soo dhacaysa inay ka mid tahay goobihii loo soo doonan jiray barashada diinta islaamka laakiin wajiyo kala duwan ay soo martay awadeed dad badan ayaan xasuusneen oo fikirka xilligan aanay aaminsanayn haddaba dhageysto ma la dhihi karaa Baydhabo waxay dib u jaleecday astaamihii caanka ku ahayd ee diinta iyadoo xilligan la dareemayo in ku dhaqanka shariicada islaamka magaalada Baydhabo uu noqday mid si aad ugu dhaqan galay isbedelada magaalada Baydhabo ayaan ahayn kuwa qormo kaliya lagu soo koobi karo iyadoo maanta ay tahay maalinta Ciidul Fidriga ayaa Maxamuud Maxamed Cabdullaahi waxa uu eegaya bilicda magaalada iyo qaabka loogu diyaar garoobay ciida Somebody